waxaa sharaf ii ah in aan maanta oo ay taariikhdu tahay 27kii bisha Sebtembar 2020 si rasmi ah aan ula wareego xilka ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxa aan mahad gaar u jeedinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo igu aaminay mas'uuliyaddan qaran. mudanayaasha golaha shacabka ee kalsoonidoodii isiiyay waxaan uga mahad celinayaa kusimaha ra'iisul wasaaraha Mudane Mahdi Maxamuud Guuleed iyo xubnaha golaha wasiirada ee xilka sii haya howlwadeennada iyo shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha howlihii adkaa ee aad ku wanaagsanaa ay soo qabteen muddadii 3 sano iyo barka ee la soo dhaafay. إن شاء الله هدو الله سبحانه وتعالى رالي كنقضه وحان صور ديسي دونا دولة تياله أو دردر جلسة هولها ممنانتا يهرتبينتا وله دلكا سيانو قارنو قولها وين إن السوقيو إن السوقيان شعب الصوماليات سيان وحوقا قبطو تعديه ده لقولك كعوها وينك يعرضتا صوماليات إذا أنا ممنانتكو هذا ينسينا يا taasoo muddo badan lagu soo noqnoqotay waxaan magacaabi doonaa insha Allah qabiir sharci oo xil weyn iska saara baarista si uu uga shaqeeyo hay'adaha cadaaladda iyo garsoorka. waxaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya uga mahad celinayaa ansixintii iyo meelmarintii heshiiskii siyaasadeed ee hanaanka doorashada ee la isla ogol yahay. waxaan bogaadin iyo dhiirigelin u dirayaa ciidamada qalabka sida walaalaheen oo naftooda u horaya amniga dalkeena. sidoo kale waxaan iyadana mahad gaar ah siinayaa ciidamada AMISOM oo qayb ka ah nabadeynta Soomaaliya iyo beesha caalamka oo garab taagan qarankeena Soomaaliyeed. ugu dambeyntii ballanteenu waa Soomaaliya oo nabad ah siyaasad ahaan xasiloon dimuqraadi ah leh dhaqaale horumarsan nabad ku wada nool dariskeeda iyo dunida nabad kula nool. waadna mahadsantihiin. ra'iisul wasaare waxaa farxad noo ah maanta inaanu kugu soo dhaweyno xafladan xil wareejinta xukuumaddii xilhaynta ay shaqaday sii waday iyo barnaamij ka turjumaya oo xil wareejina waxqabadkii dawladda federaalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xukuumadda ee 2017 ilaa 2020 kuwaasoo ku salaysan dhammaantood ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo siyaasadii uu ballan qaaday inuu ka dhabayn doono kuna hagi doono dalka muddo xileedka 4 sano ah ee loo igmaday inuu dalka hogaamiyo.